Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Nima iyo video oo sugayseen oo ahaa qaabka aan ku bartay luqadda Englishka. Safarkii luqadda wuxuu kusoo bilowday markii aan ahaa dugsiga sare. Maxaa yeelay waxaan dhiga jiray iskuul carabi ah oo manhajkooda dhan carabi uu yahay. Sanadkii labaad ee iskuulka ayaa waxaan ku biiray private lagu barto luqadda Englishka. Privatekaas waxaa dhiganayay muddo ku dhawaad hal sano ah, laakiin dhibaatada ku qabo waxay ahayd privateka in inta badan focuska la saaraya grammarka sidoo kale luqadeena ay aad u xadidneed. Maadaama mowduucyo isku mid ah maalin walba aan ka wada hadli jirnay, inta badan waxaa ku hadli jirnay ee ahayd waxaa soo xifdinay maaha waxaa samaysanayno. Yani grammarka waa baran jirnay laakiin kuma dabaqi jirin luqadda in anaga waxaana samaysano ma dhici jirin. Ku dhawaad sanad markii aan dhiganay privateka waxaan fahmay in goolka aan ka leeyahay luqadda aan weli gaarin. goolkeena wuxuu ahaa markaas in aan buuggii aan soo qabto aan akhrin karo luqadana communication ku samayn karo dadka aan la xiriiri karo waxyaabaha communicationka xadidi jira waxaa kamid ah tusaale ahaan iskuulka kaleeteed xifaaltana jiri jiray mar walba waa liscayn jiray marka luqadeena dhan waxay ku koobneed caay iyo in mowduucyo oo common ah laga hadlo markaas waxaa go-aan ku gaaray inaan totally joojiyo privateka oo aan luqadda anig iskayga u barto